arinkaasi aadan ugu xumahay maslaxa saalax suleymaan xiriir badan baana dhaxmaray ma ahan in dadka ay na cunsuriyeeyaan ma ahan inay dadka na aflagaadeeyaan ma ahan dadka inay ka sheekeeyaan waxyaalo laga gudbay oo adduunka uu ka gudbay gabdhaha Soomaaliyeed qaarkood markay wadamakas tagaan waxaa aroos Jamaican Kenyaati Faransiis dad aan u qalmin anaga waxaan qof Soomaaliyeed maslaxa saalax suleymaan waan jeclahay jecel baa naga dhaxeeyo waan ilaahan iskaan qoray waan guursaday guurkana rasuulka ayaa baneeyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu baneeyay quraankan waa lagu sheegay oo waxa la yiri halis guursado sidoo kale inta qabiilkana la tacaarufo waaye marka waxaan aad ugu xumaa in nala cunsuriyeeyo in jareer iyo jalaac meeha la keeno in waxaan loo fadhin laga sheekeeyo in wixii 91 noolo noqo aadan ugu xumahay dadka Soomaaliyeedna arintaasi 100% way ku qaldayin qaar wanaagsanaa jiro taageerayaal ah aad u wanaagsan waxaan ku arkay TikTok-ga waxaan ku arkay Facebook-ga waxaan ku arkay YouTube-ka social media dad anaga xumaanteena faafinayo ee dad wanaageena faafinayo dadku xumaanteena faafinayo aad u qaldan ayaa leeyahay ilaahay ka cabsada qabiil naga daaya Soomaaliyaanay qarannimo naga badan aadan ugu xumaan waxaa soo dhamaan Soomaaliya way ka jiraan in lis cunsuriyeeyo in heblaay ma u qalanto ilaahay wuxuu ku qadariyaa helay maslaxa maanta garabkayga waaye xaaskayga waaye dadka dhaayma u qalanta aadan ugu xumaaday dhab ahaanteena waxaan leeyahay walaal ka fiirso hadalka aa leedahay waxaan waa adduunyo waa laga tagaa qabiilka aa sheegayso gudkaas hadaa gasho waxba kuuma taraayo jareer iyo jalaac yaa abuuray alle jareer iyo jalaac yaa abuuray jareer iyo jalaac muuqaalka aad ku soo daawateen wariyaha Toshiro ka tirsan Durdur Media guurkiisa kadib iyo xaaskiisa cusub ayuu leeyahay waxa la kulmay mashaakilaad aan loo meeldayn oo zaid ah kuwaasi ay ku soo qaadeen dad badan oo cadow ah oo isticmaala guud ahaan baraha bulshada haddaba maxay tahay dadkaasi duulaanka ku soo qaaday halkan aan idinku faahfaahin doonaa sida muuqaalka hordhaca aad ka daawateen waxa uu leeyahay dad badan ayaa jira kuwaasi oo ka xun guurkayga ayagoona u soo maraya wadiiqooyin kala duwan isla markaasna ku tilmaamaya inaan guursaday gabar aan ii qalmin oo iga sareysa ama iga qurux badan si kastoo ay u dhigeenba taasi waxa uu leeyahay shaqo kuma lahan ayagu waa anaga mid noo taala oo labadeena ayaa isdooqanay sidaa darteedna ma ahan hool ayaga aysan u oolin inay faraha la soo galaan kolkaasi ay buubuniyaan meel kastana ay la taagan yihiin waxaa nasiib darro ayuu leeyahay meeshii aan ka sugaynay garab istaag iyo in ay aad noo sii taageeraan in niyajab iyo erayo kaleete aan noo qalmin ay nagu dhahaan isla markaasna ay soo dhigaan guud ahaan baraha bulshada waxa uu leeyahay se dhag uma dhigi doono qodobooyinka ama eedeymaha ay u soo jeediyeen qurux darrada iyo quruxdane waa wax wala bixiya sidaa darteedna anigu waan isku qaraxsanahay anigu waxaan ahay aniga kaliya ayagu unba iska qeylqeylinaya meelaha iska buuqbuuqaya oo hadalkooda ma ahan ka soo qaad warbixintaasi kooban halkaasi ayaan ku soo gunaanudeynaa halkan waa janarkeena lagu magacaabo Dooxa Media ee baaxadda weyn in alaale inta halkan ku cusub waxaa leenahay subscribe dhaha like share dhaha si aad u ogaataan barnaamijyada halkan aan ku soo gudbino waqti walba ay idin tahayba waxaan idinkaga tageynaa sidaasi iyo nabadgelyo kulan dambe oo xiiso leh iyo barnaamij aynkan oo kale intaan ku kulmi doono dhammaantiinba waxaa idin leeyahay halkani waa janalkiini aad kala socon jirteen barnaamijyada